بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركان حوغا waxaan focus gareynaynaa subtraction kaan focus gareynaynaa more addition ka way aad aan subtract way laakiin more waxaan focus gareynaynaa subtraction ka addition waa soo aragnay subtraction ku addition kan isla sida subtraction ku sameynaa lagu sameyn karaa improper method kan hormarinayna xoogaa subtraction ka dhib badan improper method aan dhahno for example waxa lagu yiri 5 whole number 3/6 waxaa ka goynaysaa and 1 whole number 5/6 problem ba halkan kusoo zaa'iday aan plus ku lahayn pluska duyaa isku dar lahayn sidii aan samayn lahayn laakiin minus ku dhib u keenay waxay 5 ku waa ka goyn karnaa laakiin 3 markaan taana 5 ka go 3 5 markaan taana ka go xoogaa yar ma annaan dhigan saa uma annaan dhigan see yeelaynaa marka waxaan isticmaalaynaa laba hab la isticmaalaa improper method improper ku waxaa u bedelaysaa mixed numberka improper u bedelaysaa waxaan leenahay simple waxaan leenahay 5 times 6 5 times waxaan leenahay 6 plus what 5 times 6 times 5 plus 3 saa waxay noqonaysaa 33 bay noqonaysaa korka hore hoostana 6 keeda iska ahaanaysa ma bedelaysid kan kalena muxuu noqonayaa 6 1 ku dhufo waa 6 5 ku dar waa 11/6 markaas waad kala goynaysaa waana simplify garaynaysaa kala go 33 waxaa ka goysaa waxaa ka goysaa 11 waxay noqonaysaa 22 miyaan ahayn 22/6 ka yaryareeyo laba u qayb kana laba u qayb kana laba u qayb waxay noqonaysaa wuxuu noqonayaa 11/3 11/3 marka mixed number ka dhig simplify 11 divided by 3 hadda markaan waa markii ugu dambaysan waxa ka dambeeya waxaan ka soo qaaday in iska taqaanid markii ugu dambaysan ku sameeynaysan kugu tusayo way 11 divided by 3 was 3 waxaa soo haraya 9 dad ka goysid waxaa soo haraya 2 maxay noqonaysaa final answer wuxuu noqonayaa 3 whole number ka u horeeya halkaas 3 whole number kaas waxaan ka soo dheregteen horay 3 whole number ka 2/3 muxuu noqday 3 warka halkaa ku ekaado 3 whole number 2/3 buu noqday improper method kuwa easy waxaad samaynaysaa kaliya mixed ba u bedelaysaa mixed marka u bedeshidna waa simplify garaynaysaa how about nooca kale nooca labaad aan aragno anu samayn karno waxa borrowing method borrowing kan kugu cusub yahay ama renaming method waxa laga yaabaa inuu kugu cusub yahay marka isla problemkii mid weeg baan samaynaynaa markaan nidhaahno 5/3/6 kii hadda aan samaynay baan ku samaynaynaa borrowing method kan samayno wuxuu ahaa 5/3/6 minus wuxuu ahaa 1/5/6 marka 5 ka 3 ka kore markaad macna ka go kama go'do marka tii hadaay improper borrowing waa ku tusay goor waxaan ku tusay improper ka borrowing see la yeelaya borrowing waxaa la samaynayaa waa renaming baa lagu samaynayaa marka hore rename waxaa la yiraahdaa uu tartiibiyo the first part only shantaana wax ka soo amahanaynaa fiirso shantaan waxaan ka dhigaynaa 4 xabad baan ka amahanaynaa ila 4 bay noqonaysaa soo maaha 3/6 kan sidiisu iska ahaanayaa shantii halkan ka amahanay halkaa hal nooga dhig waa 4 hal ku dar waa 5 3/3 waxaan inta kale sida noogu qor 1/5/6 saa aragtid wanka marka wankan waxaan ku bedelan karnaa wixii aanu doonno ku bedelan karnaa laba tiro 6 u qayb waa hal hada fiir 5 u qayb waa hal waa ka dhigan karnaa halka booskiisa 5 waa ka shan karnaa 10 u qayb waa hal waa ka shan karnaa booskiisa wanka booskiisa wax walbaan ka shan karnaa 6 u qayb waa mid waa sarifi karnaa wanka marka waxaan ugu qurux badan yahay inaan ku sarifano inaan booskiisa ku sarifano 6 loo qaybiyo 6 baan ku sarifanayna why isugu ekaadaan day 6daa day si isugu ekaadaan 6daa iyo 6daa saddex si isugu keen ekaadaan hadda isku daraynaa marka kan kore waxaa noqonayaa 4 qsidiisa 3 ga 6 ka ku qabo waa 9/6 minus muxuu noqonayaa 1 whole number qoladan ma aanan taaban sida iska 1/5/6 kala go marka 4 ka 1 ka go wuxuu noqonayaa waa 3 9 ka 5 ka go wuxuu noqonayaa waa 4 hoosta maxay noqonaysaa 6 2 ga iyo marka 4 ka iyo labadan simplify garee labadan laba u qayb laba ka dhig kana laba u qayb saddex ka dhig final answer wuxuu noqonayaa
3 whole number 2/3 alimaanta kalarada badan laka raali laho markaan kasbay waxaan iga hayd inaan ku kala socsoco waa 3 whole number 2/3 bay noqotay kiibay la mid tahay marka saa aragtid saasaa loo sameynayaa example badan markaa aragtid insha allahu taala waxaad ugu tegaysaa mor hal habaan ugu darno hal booro aan ku darno alla ilaa aan ku darno 4 9 okay halkaas waxa ka dambeeya bayanmadsare.com baad aadaysaa marka exercise badan baad ka helaysaa insha Allah waxaad kaloo ka helaysaa hadii ilaahay idinka ka dhigayo sharax ogaa intii ka badan halkaas kaaga tagaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh